بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dadka meel walba joogtiin caafimaad waara Ilaahay noogu baryaa. Maanta waxaan rabaa fariin idin la wadaago haduu Ilaahay yiraahdo. Waxaa jira waxyaabo quseeyo ama taabanayo qof kasto shakhsi kasto Soomaali ah ama dibadda ha joogo ama dalka ha joogo. waxaa akhlaaqiyad wax la dhahaa jira diin ahaan iyo mujtamac ahaan. ilmaheena markay yaryar yihiin dhowr meelood ama dhowr xalqadood waxa uga soo hadlay barbaarinta wanaagsan ee ilmaha sida wanaagsan ilmaha loola tacaamuli karo sida qulubtooda loo ilaalin karo korinta ilmaha iyo la tacaamulka iyo wanaagaas lagu korinayo mar walbana waxa qasab inay hoos yaalaan diinta islaamka iyo wixii markaas culture ama dhaqan ahaan u yaalo oo lagu yaqaan dowlad nidaamsan ama wadan markaas jiro. waxaa jiro nabiga عليه الصلاة والسلام wuxuu dhahay yani hadaa saddex qof meel isku yimaadeen qofkiin ha hogaamiyo hogaamiskaas macnaheedu waxay tahay yani laazim qofkan mar haduu ku hogaaminayo oo yahay qof horseed ku wuxuu ka mudan yahay ixtiraam wuxuu ka mudan yahay warkiisa inaad maqashid wuxuu ka mudan yahay in ka badan intii aad la doodi lahayd qof kula siman ama qof caadi ah yani in ka yar asaga la doodin ama aad warkiisa qaadatid. iskoolada wada dhignaa dugsiyada wada dhignaa ilmiheen way soo wada hoydaan marka waxa jeclaan lahay maanta inaan ku daro in la baro ardayda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan yani in xuquuq ay ku leeyihiin dadka markaas madaxda u ah kasoo bilaw macalinka fasalka ugu jiro ku xiji formisterka oo fasalka ku xiji maamulaha fasalka iska leh inta badan waxa laga yaabaa ilmaheena dhaqan ahaan anaga inaan u leenahay inaan ixtiraamno waalidiinteena iyo macallimiinteena dugsiga iyo dhankaas waa ka dhisanahay alxamdulillah laakiin wixii ka sii koreeyo oo maamul ah ha ahaado maamul askareed ama ha ahaado madaxweyne markaas xukumayo wadanka dhan waxa ka mudan yahay qofkaas qofka shacabka Soomaaliga inuu ixtiraamo ixtiraamka ixtiraameena madaxdeena macnaheedu waxay faraysaa inay tahay qof akhlaaq wadanka Soomaaliya ka soo jeedo qof u saaxiib ah akhlaaq laakiin hadii lagu arko in qofkaagi madaxweynaha ku ahaay inaad la tirsanaysid ama dadkii markaas ku xukumaay inaad la tirsanaysid ama hadalada caayad ama kaftan sida asxaabtaada camal u diraysid macnaheedu waxay noqonaysaa inay meeshii ka hoos baxdo sumcaddii goonida aad wadan ahaan Soomaaliya lahayn yani ma ka wadi madaxweynaha hadda gooni u taagan laakiin waxa ka wada qof kasto markaas madax ku ah diinta islaamkana waxayna faraysaa waay nooc waraba ha ahaado ka yaraado ka kala duwanaado laakiin qofkii markaas madax ku ah oo la isku raacay wuxuu ka mudan yahay ixtiraam iyo inaad ka dambaysid inaadan ula kaftamin ama ugu kajamin sidii qof oo kula mid ah ama saaxiibkaaga ah fariintan waxa u diraa waxay tahay ama qof walba Soomaali ahne uu fahmi karaa inay tahay yani in ardaydeeni Soomaaliyeed oo ka sugayna bari wadankeena inay wax u qabtaan in ay ku kacayaan qaladaad hoos imaan karo madaxda in wixii la rabo la dhaho marka fariintaas aan soo gudbinay waxa rajaynayaa qof walba inuu si positive iga qaato muhiimadana waxay tahay kala dambeynta iyo akhlaaqda mid maanta dawladda ee fareysana ma aha mid oo aniga afarayna ma waa mid diinta islaamka ee fareyso marka waxa rajaynayaa in ama iskoolaadka ama dugsiyada iyo ilmaha la fahamsiiyo qofka madaxweynaha wadanka ka ah inuu iyagana madaxweyne u yahay yani aysan u banaaneen shakhsi ahaan in meelaha ku caayaan ama ay la tirsadaan waxa rajaynayaa waxaan naga fahamteen waa mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.